السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو إفرح أحمد أقاسمها هيئة إفرح فاونديشن. maanta waa maalintii loo astaamiyay adduunka la dagaalanka gudniinka gabdhaha 6 Febraayo. runtii aad waxa ugu faraxsanahay in TV-ga qaranka ay qayb ka qaadanayaan ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha amba ay sameynayaan wacyigelin aad u badan. runtii in muddo ay Soomaaliya ka shaqeynayay ilaa 4 sano ugu dambeysay waxaan wacyigelin ilaa iyo barnaamijyo badan aan u qabanay 18 degmood ee gobolka Banaadir ilaa 6,000 oo dhalinyaro ah. maanta waxaan aad ugu sii faraxsanahay in media oo dhan ee Soomaaliya warbaahinta oo dhan ay ka qayb qaadanayaan ololahan la dagaalanka gudniinka gabdhaha sida hadda TV-ga qaranka ayaga ay barnaamijkan ay hogaaminayaan. waxaan sameynay sanadka hore dhamaadkiisa training ku saabsan sidii culuumadiinka iyo warbaahinta ay uga wada shaqeyn lahaayeen uga qayb qaadan lahaayeen ololaha gudniinka. ilaa iyo 46 waxaa kasoo qayb galay culuumadiin iyo journalistayaal dhalinyarada warbaahinta la shaqeynayay Soomaaliya oo dhan amba Muqdisho ay waxay ka kala yimaadeen Garowe iyo Juba iyo Puntland iyo South West. kulligoodna maanta ay barnaamijkan ay wada qaban doonaan. waxaa la isku wada raacay in culuumadiinka ayagana ay qayb ka noqon doonaan ololahaas maadaama gudniinka gabdhaha la yiraahdo waa waxa waaye wax oo yani diinta islaamka amba diinta ay qabto culimadaba ay taas isku khilaafsan yihiin balse culimaday ka soo qayb galeen tababarka ayaga nagu yiraahdeen hadii aan helno dhaqaatiir anagana wacyigeliyo ee noo sheego dhibaatada uu leeyahay gudniinka waxaan diyaar u nahay inaan ololahaas aan sameyno. waxa dhacday dhibaatooyin badan ani inta Soomaaliya jooga oo shaqeynay waxaan la kulmay gabar kaliyaha beeshay sababtoo ah gudniinka lagu sameeyay dartiisa isbitaal Digfeer markii aan geeyay kaliya dhaqan loo sameynayna kaliyada kale ay ka dhimatay gabadhina ay meeshaas ku geeriyootay. waxaan la kulmay hooy aabe oo ayagana gabadhooda iyadoo oo 15 jir nin lagu daray markay uur yeelatay waqtigii ay dhaleysana ay dhali weysay dhiigbax dartiisa maadaama gudniinka si xun loo tolay gabadhii ay dhiigbax u dhimatay. arrintan waxay ka dhacday baadiyaha. hooyadii aabe waxay ka sheekeeyeen waxay sugeen ilaa cunug oo caloosha ku dhinto maadaama hooyadii ay dhimatay. runtii taas wax laga xumaado waaye waqtigan la joogana taas ma ahan inaan ogolaano in ay ku dhacdo. waxaan rajeynayaa dowladda sidoo kale ayagana inay arrintan ay aad uga qayb qaataan sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka sharcigana ay soo saaraan oo gudniinka lagu xakameynayo. sida aan ogahay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa barnaamijkan sharciga oo ciribtirka gudniinka hogaaminayay balse waxaan rajeynaynaa dowladda Soomaaliya inay ayagana sharcigaas ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo saari doonaan. haddii oo Ilaahay yiraahdana anagana waxaa naga waajib ah in aan Soomaaliya oo dhan wacyigelin aan u sameyno sida wada ognahay 2030 waa waqtigii la yiraahday adduunka oo dhan waa laga ciribtirayaa gudniinka. waxaan rajeynayaa 10 sano hadda dhima Soomaaliya in laga wada joojin doono gudniinka gabdhaha ee gabi ahaan. waxaan rajeynayaa dowladda ayagana inay aad arrintan uga qayb qaataan maxaa yeelay xuquuqda aadanaha amba xuquuqda haweenka muhiim waa ogahay dowladda waxay aad diiradda u saartay hadda amniga muhiim waaye balse in aan la iloobin xuquuqda ay gabdhaheena leeyihiin. maantana waxaan leeyahay Soomaaliya meel walba ay joogaan ha guuleystaano. waxaan rajeynayaa in wacyigelintan ay noqoto mid aad u balaaran Soomaaliya ayagana adduunka ay wax la qaybsan doonaan. wiilasha asxaabta dhalinyarada ee kulli warbaahinta u shaqeeya ee barnaamijkan igala qayb qaadanayna waxaan leeyahay kulligiina aad ayaad ugu mahadsantihiin. ha ka daalina inaad dalkiina wax u qabataan si aan u badbaadino gabdhaheena insha Allah taala. السلام عليكم.